السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا سلامي ولا كحرن شلنكينا سمجرد محاضركو ديدينا الرماء أي قبنيان إن أي دنكا وعنا أي كيجويان أي دنكا حن أوجا إيجان ونسلو جندونا سببت وعيته مقالك إن ما أنت هاوجو ذكرنا dhacdadani waxay ku dhacday gabadh la yiraahdo Sucaad maalin maalmaha kamid ah xaalad caafimaad darro waxay la soo daristay Sucaad aabaheed dhakhtarka ayaa la dhigay hase yeeshee saqbarkii habeenimo waqti ay dadkoo dhani wada hurdaan ayaa waxa soo dhacay telefoon gabadhii Sucaad oo hurda khoorinaysa ayaa waxa toosiyay qaylada telefoonka markii hore waa tii ogeed aabaheed inuu xanuunsanayo waxay baystiri aabaha dhimashadiisa ayaa lagu soo sheegay kadibna ooyin bay qabsatay iyadoona telefoonkii qabanba dadkii oo dhani way baraarugeen oo la isweydiiyay warkani muxuu yahay gabadha loo ooyeyso Sucaad way diiday inay telefoonka qabato laakiin ninkeedii ayaa kacay oo telefoonkii qabtay wuxuuna ogaaday in telefoonku yahay mid soo khaldamay oo meel kale ku socda Sucaadna yaabi amakaad way ku noqotayba weliga arrinkaas oo kale ma kugu dhacay adiga bal ka waran adigoo gaadhigaaga iska wata haddii aad aragto gaadhi boolis oo kugu daba jira maxaad filanaysaa laga yaabaa inaad filatid maxaan sameeyay boolisku iga daba socda kadibna adigoo argagaxsan oo isleh lagu qabay haddana gaadhigii dariiq kale kaga beedhay gaadhigii boolisku dariiq kale kaga beedhay dadka waxaa jira kuwa ku takhasusay inay fishaan wax xun oo xanuun badan kadibna wixii ay fisheen sidaasunbuu ugu dhacaa waxaa loo baahan yahay inaad noqoto mid xamaasad iyo tamar ay ka buuxdo oo leh xirfado badan arrinkaasna noqdo mid caqligaaga iyo ficilkaagu isku waafaqaan laakiin haddii aad guul filan weydo waad guul dareysanaysaa dadka guusha gaadhay waxay ka midaysan yihiin inay noloshooda wax fiican rajeeyaan bal iminka haddii aan su'aal ku weydiiyo bal ka waran ma aaminsan tahay iswaafaqa fikirkaaga tusaale ahaan ma dhacday inaad xasuusato ruux isla markiiba isagii kula soo hadlay ama se aad filatay shay kadibna shaygii sidii aad u filatay uu kugu dhacay waxaa jira qaanuun la yiraahdo qaanuunka filashada wuxuuna sheegayaa sida aad shay kasta oo aad filatay si kalsooni buuxda leh uu kugu dhici lahaa sida aad u filatay tusaale ahaan dadka nolosha ka dhacay had iyo jeeraale waxay awoodda saaraan meelaha dhibaatadu ka jirto had iyo jeeraale waxay ku mashquulaan saadaalinta inay waxan u dhici doono markasta arrimaha dhinaca madow bay ka eegaan kuwa guulaysta iyagu arrimaha waxay ka eegaan dhinaca wanaagsan dhinaca iftiimasa waxay ku kalsoon yihiin awoodooda iyo kartidooda inay wax wanaagsan u dhacayo way fishaan ama rajeeyaan haddaba kolba filashadaadu siday tahay waxay saameyn buuxda ku yeelanaysaa mustaqbalkaaga iyo aayahaaga dambe u fiirso hadalkii uu yidhi tirtoor Mustafa Maxamuud buuggiisa caqliga iyo jasadka marka aanu marayno dariiqa guusha kolba wixii aynu filano ayuunbaan helaynaa haddaad guuldarro filatid guuldarruunbaad helaysaa haddaad guul filatid guushuunbaad helaysaa caqliga daahsoonimo kala sooco waxa xaqiiqada ah iyo waxa aan xaqiiqada ahayn kolba wixii aad u sheegtun ayuunbuu qaataa haddii aad naftaada u sheegto oo aad tiraadid waan karaa iyo haddii aad tiraadid ma karayo kolba kaad u sheegtuunbay u dhacaysaa waxaad ogaataa caqligu inuu yahay sida birlabta oo kale markaad fikirkaynu yahay mid togan waxaan soo jeedinaynaa muwaaqifyo togan oo fiican haddii kale aan sida taban aanu u fikirno waxaan soo jeedinaynaa muwaaqifyo xun oo taban si aad filasho togan oo u yeelato saddexda qodob raac aan kula wadaagi doono qodobka koowaad marka aad dareento inay naftaadu kugu sheekeynayso filasho taban isla markiiba waa inaad caqligaaga u sheegtaa inuu meesha ka saaro arrintaas xun qodobkeena labaad haddii aad maqasho naftaada ku leh anigu ma karayo arrintaas inaan qabto ama ma karayo inaan guulaysto waa inaad tiraahdaa waan guulaysan karaa hadduu guushu gaadhay qof kaleba aniga maxay diidan inaan gaadho kudha naftaada
qodobkeena saddexaad ku dhaqaaq inaad ku camal fasho qorshahaaga dhagaha ka furayso wararka taban ee naftaadu kugu sheekanayso cadawga koowaad ee bini'aadamku leeyahay waa naftiisa maaha qof laba cisho ay siira maateen maaha cadawgaaga kaas laakiin cadawgaagu waa naftaadu waxyaalo xun bay kugu sheekanaysaa masalan waxaa jirta mar aad arrin wanaagsan haysay kadib waxay kugu odhanaysaa armay dadku ila yaabaan bay ku odhanaysaa aduu waxay kaa tusaysaa arrimaha dhinaca xun bay kaa tusaysaa filasho xunna way ku siinaysaa markaa taas waa muhiim inaad naftaada aad runtaa ugu sheegtid arrinkaad qabanaysidna markaad caajis ama wax baranaysid dhibaataa ka hor imanaysa dhibaatadaasay ku odhanaysaa waxaan faraha ka qaad waxan waa wax xun waxa laguma talagelin waxba naftaadu ku odhanaysaa marka inaad naftaada ka adkaatid waa muhiim cadowga koowaad ee bini'aadamku leeyahay anu waxaan u aqaanaa inuu nafta yahay laakiin maaha laba qof oo maalin aad siira qabsateen aad is afgaran weydeen maaha kaas sidoo kale dadka kugu xeerana naftaada saameyn bay ku yeelanayaan dad baa jira dadka ku dhaca yara hadallo jeesa ku dhaca marka waxa wacan inaad aduu wadadaada ku socotid oo dadku waxay kugu sheegayaan iyo naftaada waxay kugu boorgaraaminayso aana marnaba aad qaadan qodobkaasna oo qodobka maalintii marka aad shaqadaada gelayso ku bilow filasho togan oo toosan oo aad khayr iyo wanaag filayso filashada wanaagsani waxay ka mid tahay iimaankeenna oo inaan ilaahay wax fiican ka filanaa waa mid ilaahay naga rabo rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiis ilaahay ka warinayo ilaahay wuxuu yidhi anigu kolba sidaa addoonkayga iga fisho ayuunbuu helayaa hadduu khayr iga fisho khayr haddii uu shar iga fishona shar buu helayaa maxaa inoo diiday inaan ilaahay wax fiican ka malaysano kadibna camalkeeda aan la nimaadno ilaahay wuu inoo aqbalayaa in badanoo maanta muslimiinta ka mid ahay ayaa had iyo jeeraale ilaahay wax xun ka malaystaa wixii ay ilaahay ka malaysteen way helaan xasan albasri wuxuu yidhi qofka muuminkahay ilaahay ayuu wax fiican ka fishaa markaasuu wanaajiyaa camalkiisa qofka faajirkaana ilaahay ayuu wax xun ka fishaa markaasuu xumeeyaa camalkiisa muuqaalkeena maanta intaasuu ka eedyahay ilaa bilow ilaa dhammaad haddaad nala joogtay wax yar aan kula wadaago intaan muuqaalka ka bixin option yar baa kula wadaagaya optionka yar baa isku day inaad soo fulisid waa muhiim inaad soo fulisid haddaba waxaa jira optionka dad loo fuliyo aana dadka waxba kusoo kordhinin marka waxaan leeyahay optionka waxaad u fulisaan dadka waxtar kale oo dadkooda xoga ka maqan kusoo kordhinaya waxa u fuliya markaa su-aalaan ku weydiiyey intaana muuqaalka ka bixinay aniga optionkan ma ii fulisay haddaadan fulin optionkan ama aadan fahansanin optionka wuxuu yahay optionka waxa weyn ma ahaba waxa weeya leed ina muuqaalka saartid sii sheergaree saaxiibada la wadaag kuwa whatsappka kugu jira kuwa facebooka kugu jira dhammaantood la wadaag isaga uga faa'iidaystaan muuqaalka hadday ku camal falaan oo si wacan uga faa'iidaystaan ajar baad ku leedahay muuqaalka anaana ku damaano qaadaya anigagin muuqaalka sameeyey haddaad sheergaraysid weeye markaa optionka lagu sheegayaa waa caynkaas inaad muuqaalka leed saartid channelka subscribe saartid haddaad ku cusub tahay muuqaalkana saaxiibada la wadaagtid muuqaalkeena maanta intaasuu ka eegyahay koleyna muuqaalka wax ka faa'iidaan filaya insha allah waxaan iga tegayaa intuu maanku gaajiisan yahay guuli waa weli ayuu abwaan hadraawiyin allah u naxariiste waxaan iga tegayaa inta muuqaalka xiga aan iskugu imanno amaano allah wassalaamu calaykum.